maxamed xasan cali weji agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan geesta kalena markaad eegto ah suxufi weyn oo ruug cadaay ah oo in badan ka soo shaqeynayay saxaafadda kala duwan ee somalilan iyo dalkaasi soomaaliya intaba maxamed xasan cali weji waxa uu soo taagnaa munaasabadii 26 juun habeenkii calanka la saarayay ee timacadana uu lahaa ka nasiib kana saar dabaaldegii iyo damaashaadkii waqtigaasi shacbiga reer somalilan ay ku hananayeen madax banaanida mustacmaradii dowladda ingiriisku ay bixinaysay maxamed ka waran runtii waa waxa ilaahay loogu mahadnaqo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayaan leeyahay inaan joogay maalinta ama nin weyna oo weliba iskuulka dhigta oo dugsiga dhaxaa oo sheekh markaa galay inaan maalintaa joogo iyo maalmihii ka horreeyeyba waxa ilaahay mahadnaqo maantana aan weli anoo caafimaad qabo oo socdaa weliba hawl qabanayaan joogo waxa ilaahay loo mahadnaqo maantaas waxayd maxamed haddaan kuu sheega maalin qaali ah maalin qofkii joogay maanta ee nooli aan ilaabi karin oo garanaya qiimaheeda qof kasta oo waacida oo wax bartay oo aqoon liima ogyahay waa maalinta astaanta u ah xornimada dalkeena waa maalintan xornimadeena qaadanay heeso badan oo soomaaliya ayay sameeyeen abwaaninkii habeenadaasi oo ay jirinayeen laakiin anigu had iyo jeer waxaa maankayga kusoo dhaca hees suudaan ay samaysay oo maalinta u asteeyo oo haddaba ay saarto filbishanadooda oo ay kaga hadlayaan maalinta xorriyaddooda ay qaateen ayaan anigu astaan uga dhigtaa oo ilaaha alyawmu يوم الذي رفعنا علم استقلالنا وما العالم كي تاجنا حرمتنا ويصفر التاريخ ولادة شعبنا التاريخ ذو كفوري شيء برشيد شعبيا ما أنت شو حيث ما أنت عالم كلا تاجي سومالند وحرة إنك على عالم كا حب المهم من القطار هاي الشيء واحد مقادم استقلال كين وحي هاي ما أنت شعبك سومالند وقال تاريخ ذا إلا قري إنه هي دول مدح بنان وكم يتدرك عالم كان ما أنت لما قلنا ما أنت سبق قري تذكر بعض الموت بيشتغلتان الشيء اللي بيشتغلتان يلي حيلا تكتشون ما أنت لما أنت حريته الشيء اللي هنا وما أنت قراني ماذا ولا بكر الدول وأنا سبحان وحن أظن لها مركان ما أنت شيء يدرس الإسلام وما أنت إنجليز وهل كان كعب وما أنت عالنكا وحرة لتاجي وما أنت القلوب مليانة قاضمي هدان كوس وقوبة بعدو ينكي عن حصوصته إما لها داعي وما أنت هاسي ما أنت وكوا شان يلا راتنا ساعد مركي هاي أفرد كي قلب منه أيا اللي يسوي كي هل كان مساج وكل شيء إبراهيم ده وشعرك الله طولا لوكو كميداني تذكر قيلي كم مقدينة إلى هم بكران كلام سقيري كبير هل كان سنة تاجنا لحدي ومرلا أيا بيقولوا على كي إنجليز كهالكان برصاب كي إنجليز كي مدحدي كلا إنجليز كي بالك أخذ بالكتير دي أي كجا هضيان تاريخ سونالند كل أمانة ينتفك شعب كسونالند ونهم بليان يان حرمه هل كاوح السلام كنت حي إذا مدي إنجليز كه حتى باندد ميش كتونيشي waxaa laga keenay cadan waxaa niman ingiriis ah oo miiska tuma oo dharka iskoodka qaataan ee hidaawa anagu dhalinyaradii daawanaysan waxa astaan waliba ahayd oo intii joogtay iga marakacaysa in reer biyar nagu helay meeshii roob yar oo qaboojiyay dadka wallahi waa farxad tafsir oo ilaahay naxariistiisa halkaas laga yaacay dadkii beerta xorriyadda ayaa aad loo si fiican u dhicin bay iska buuxiyay راديو هرقيسة وهرقن كان قريبا كسوق قارتين يا فنانين هالكا دياركوها وبرنامج كتيريني إلا الذي يتفكرها من ممر الدمن أي هالكا لتاجنا لأن عالم كبار لقى تاج خذ بديش ويدار شدين رئيس الوزراء هناك كنا القار شيء هي دركة وها قال لا ينعس ما كورا بي يا برصات كي وحرك يشبوريشني صبحي مبان ما سيحنا هدنا وحن كوكر هم كو أرضني isbitaalka lagu reeyay runtii ilaahay barakeeyay aad istay inta naadni halku ka dhashay agagaarkiisa iyo garoonkaas weyn oo loo jeedo garoonka boolooga ciidamadu salaanta ku bixin jireen ayaan ku kalaamay waagii bariin halkaas salaantii lagu bixiyay ciidamadii Soomaaliya iskaalto inagu aan bahayn
markaa koonfurnimada lahayn ciidamada militariya ayaa halkaas salaanta ku bixinayay farxadda iyo jibada iyo kalgacalka dadka muuqdayna qofkii taagnaa iyo ilaahan baa garan kara maanta horta maalintaasi ahayd halgankii loo soo galayna dee wuxuu ahaa halgan dheer oo ka soo bilaabmayay dhalinyadii u kacday dalka ilaa kii SNSha ilaa kii u dambeeyey guusha lagu gaadho ahaa SNB iyo SBO isku darsatay iyo injilaaf waxba ku dheeraan mayno odayaal badan baa taa ka hadlay laakiin waxaa ku yaro noqonaya idinley maalin aabala maaha waa maalintii qaranka dalka gobonnimada dib ula soo noqonay halgan dheer kadib oo innaga iyo Soomaaliya aynu isku afgaran weynay dhibaato badan inaga soo gaadhay dad badan baa godu galay oo dhintay waan leenahay waa geesiyaashii Somaliland waa leeyihiin xaqiiqdii maanta nabadda aynu haysano qarannimada aynu haysano dhaqaalaha aynu haysano waxbarashada aynu haysano dimuqraadiyadda aynu haysano dawladda aynu haysano ictiraafka aynu higsanayno haddii raggaas u dhiman maynaan heleen waxaan la ragayaan la sumadayn oo sumad qabiil lagu dhisin waa geesi u dhaxeeya Somaliland haydku doonaba haadee qof kasta oo Somaliland u dhashayna inuu u duceeyo xariisan oo u duceeyo maanta inta nool baa qaysanaysa oo ku raaxaysanaysa oo haysata meecawdaasina waa dib ula soo noqoshadii xorriyadeennii iyo halgankii jiddan aynu ku hananay gobonnimadeennii waa astaanta qarankeena qofka qiri waayana maha qof Somaliland macnaheeduna wadaniyadan meelba kama soo galo waxaan leenahay labada maalmoodba midba qiimaheeda ayaa leedahay tanna waa tii xorriyadeena aynu ku faanay ingiriiska kaga qaadano inashii tanna waa tii Soomaaliya aynu kagala soo noqonay gobonnimadeennii aynu dalkeennii maanta istiqraarka iyo nabadgelyada iyo sharaftaas uu leeyahay aynu ku hananay labadaba waxaan leenahay waa astaan Somaliland ha noolaato bixi la takasuulna waxaan leeyahay dadka Somaliland markay joogaan baa hambalyo ee diinna maanta qarannimadeena maxamed xasan cali waji agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ahna wariye weyn oo ruuc cadaaya aad baad mahadsantahay adan mudan